yahuudda waa dadka ugu saamaynta badan adduunka. waa dad tiradooda ay ka yar tahay 20 milyan balse ka saameyn badan 100 milyan. waa dad ka sameeyo lacagaha noocyadooda kala duwan, haddii ahaan lahayd mid birta iyo sidoo kale mid warqadda. yahuudda waxay gacanta ku hayaan maamulka dhaqaalaha caalamka, haddii ahaato dhaqaale, haddii ahaato siyaasad, iyo sidoo kale saamaynta guud iyo waxqabadka iyo wax soo saaridda caalamka. sida la ogyahay, yahuudda waxaa jiro magac ay caan ku yihiin, magacaasina waa Israa'iil. magaca Israa'iil iyo magaca Yahuud waa laba lafdiyo kala duwan balse isku macno ah. muuqaalkeena daawadayaal waxaan ku falanqayn doonaa ama aan ku soo qaadan doonaa dhowr su'aalood. waa maxay yahuud? sidee u noqdeen yahuudda dad saameyn leh? maxay tahay sababta yahuudda ay u haysato dhulka Falastiin? iyo sidoo kale xagee bay ka soo jeedaan asalkooda yahuudda? waa maxay sanduuqa sirta? suurtagal miyaa yahuudda in ay qabsadaan dhulka Falastiin? sidoo kale maxay kala yihiin ambiyadii loo soo diray yahuudda? su'aalahaasoo dhan waxaan ku falanqayn doonaa muuqaalkeena. fadlan haddii aad ku cusubtaa janalka, taawo calaamadda guduud ee subscribe-ta, sidoo kale laagtan taawo haddii aad tahay mid ka helay muuqaalka. halqabsigeena ayaa ah tabin iyo tusaale iyo tusmo xooggan ayaad ka helaysaa janalkan. waxaan rajaynayaa inuu muuqaalkan ku qancin doono oo aad ka bogan doonto insha Allah. نسمات الحنين يا جنة الله على أرضه بنحبك يا فلسطين من بحرك من جزر ومده هبت نسمات الحنين. السلام عليكم. haddii aan taariikhda dib ugu laabano, nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhalay laba wiil ama laba nebi. labada nebi waxaa lagu kala magacaabi jiray Isxaaq iyo sidoo kale waxaa lagu magacaabi jiray Ismaaciil. Ismaaciil waxaa ka faracmay dadkii ku noolaa ardul Xijaas dhanka iyo Makka sida nabiga sallallahu alayhi wasallam. nabigana wuxuu ku abtirsadaa Ismaaciil alayhi salaatu wasalaam. sidoo kale Isxaaq waxaa ka faracmay nabi Yacquub, nabi Yuusuf iyo dhammaan wiilashii la dhashay nabi Yuusuf alayhi salaatu wasalaam ee 11 ka ahaa. waxayna ku sugnaayeen oo ay degnaayeen dhulka lagu magacaabo Falastiin. marka nabi Yacquub iyo nabi Isxaaq waa isdhaleen. nabi Yacquub markuu wuxuu sii dhalay nabi Yuusuf. nabi Yuusufna waxaa la dhashay 11 wiil. wiilashani faracooda iyo wixii ka dambeeyay waxaa lagu magacaabaa reer bani Israa'iil. marka asal ahaan reer bani Israa'iil faracooda ama waxay ka soo jeedaan nabi Yacquub alayhi salaatu wasalaam. sidoo kale waxay sii faracmeen waqtigii nabi Muuse alayhi salaatu wasalaam markii Allah subxaanahu wa ta'aala uu soo saaray nabi Muuse alayhi salaatu wasalaam. waa waqtigii uu cadaadinayay Fircoon oo adoomada ka dhiganayay. waqtigaas waxay ahaan dad iska wanaagsan oo muslimiin ah. kadib markii Allah subxaanahu wa ta'aala uu amray in ay baxaan oo ay ka baxaan deegaankii ay ku noolaayeen kaas oo ka talinayay Fircoon. kadib nabi Muuse alayhi salaatu wasalaam badda ayuu ul kala dhuftay, waxayna noqotay laba firqo. kadib ay ka soo gudbeen halkaasna waxaa lagu halaagay Fircoon iyo qoomkiisa. halaagii Fircoon kadib reer bani Israa'iil waxa ay ku soo laabteen dhulkii Fircoon uu ka talinayay ee qazaa'inta dahabka yaalay, kheyraadkana uu yaalay. kadib meesha ay ku noolaayeen ilaa ugu dambeyntii uu yimaaday nin lagu magacaabo Saamiri. Saamirina wuxuu ahaa nin markaas iyaga baadiyanayo oo dhiminayo. kadib wuxuu u qurqurxiyay dibigaasna wuxuu dhahay dibigan waxaa ka tagay raad oo markaas malag ka tagay. waxyaabo fara badan ayuu qurqurxiyay. kadib wuxuu dhahay ilaahan waa ilaahii Muuse, waana uu ka tagay, waana uu iloobay. reer bani Israa'iil waxay bilaabeen in ay caabudaan dibigii markaas uu qurxiyay Saamiri. ugu dambeyntii waxaa soo laabtay nabi Muuse alayhi salaatu wasalaam. waa uuna xanaaqay, wuxuuna ku xanaaqay qoomkiisa, wuxuuna ka bilaabay walaalkiisa Haaruunna garka ayuu ka jiiday. aad buu ugu xanaaqay. wuxuu dhahay sidee baad u dayacday qoomkii aan kaaga tagay? ina hooyo garka ha iga jiidin. waxaan ka cabsaday reer bani Israa'iil in ay kala firqoobaan oo ay u kala baxaan firqooyin kala duwan. wuxuuna u imaaday Saamiri. wuxuu ku dhahay Saamiri waa xaalkaaga muxuu yahay? ilaa cabaar markay is wareysteen kadib wuxuu dhahay maxay tahay xaalkaaga? maxaad samaysay? sanamkana muxuu yahay? Saamiri kadib wuxuu dhahay waxaan arkay waxa isan arkin, waxaan qurqurxiyay, wax baan u qurqurxiyay, waa ayna raaceen.
nabi muuse kadib waa uu habaaray saamiri wuxuuna ku dhahay noloshaada waxaad ahaanaysaa meel walba aad joogto ama meel walba aad tagto mid dhaho taawasho ma jirto. nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waa nebi ay ku abtirsadaan ambiyadoo dhan. sidoo kale nebi ibraahim waxaa lagu sheegay kutubta samaawiga afarta ah hadday ahaan lahayd diinta yuhuudda, midda kiristanka iyo sidoo kale midda islaamka. waana nebiga ay ka soo farcameen ambiyadoo dhan sida isxaaq, yacquub, ismaaciil, yuusuf iyo nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ilaa ugu dambeyntii uu abtirka ku dhammaanayo nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam. taariikhdu waxay ahayd mid isku taxan, ambiyadana waxay ahaayeen kuwa la soo dira. waxaa jiray looxoo alla subxaana wa tacaala uu u soo dhiibay nebi muuse calayhi salaatu wasalaam. looxaasi waxaa ku xusnaa amro fara badan oo gaarayo 10 amar. looxaasi ayaa ah mid ka maqan reer bani israa'iil ilaa hadda, wuxuuna ka mid yahay asigii masjidka baytulmaqdis waxyaabaha ay raadinayaan oo ay sugayaan. sidaan soo sheegnay waxaa jiraan 10 tiir oo beesig u ah diinta towraad. amaradani ayaa ah kuwa saldhig u ah diinta towraad, waxayna kala yihiin: shardiga koowaad ayaa ah in alla keligiis la caabudo. midka labaad wuxuu sheegayaa 4 jiho kor iyo hoos oo micnaheedu yahay cirka iyo dhulka, alla sokadiis in la caabudi karin sanam. shardiga saddexaad magaca alle meel cidlo laguma soo hadal qaadi karo, lagumana xusi karo. shardiga afraad maalmaha isbuucii waa inaad shaqaysaan 6 maalin oo keliya, maalintoodaad waa inaad u goysaan cibaadada alle. shardiga shanaad waa in aan lagu caasinin waalidiinta oo loo ixsaan falo. shardiga lixaad waa in aadan dil geysanin oo aad xaqdaro ku dilin naf. shardiga toddobaad ma sinaysan kartid. shardiga siddeedaad waxaa tooya ama samayn kartid ama wax ma xadi kartid. shardiga sagaalaad deriskaaga been ma ka sheegi kartid, sidoo kale been markhaati uma noqon kartid. shardiga tobanaad ahna shardiga ugu dambeeyo deriskaaga xoolahooda indhaha lama raacraaci kartid. 10kan shardi waa 10ka amar ama 10ka shardi ee beesig u ah diintooda towraad. helidda masjidka baytulmaqdis iyo sidoo kale helidda looxa ay ku qoran yihiin amarada diintooda waa waxyaabaha ka maqan ilaa hadda ay ku jiraan raadintooda. arrimahan iyo arrimo kale waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee yuhuudda ilaa hadda ay tawayaan oo ay raadinayaan oo ay ku guda jiraan in ay helaan. taariikhdu waxay ahayd mid isku taxan, ambiyada waxay ahaayeen kuwa la soo dira jilba jilbo dhaqanka iyo diinta ka qaadanayay ilaa ugu dambeyntii ay soo gaartay yuhuudda. yuhuudda waa dadkii inxiraaf gareeyay kutaabada, kutubtu waa ay bedeli jireen, ambiyadana waa ay dili jireen. haddii aan ka jawaabno su'aalihii aan hor ku soo qaadanay, waa maxay yuhuud? yuhuuddu waxay ka soo jeedaan farcii nebi yacquub calayhi salaatu wasalaam, waa ilmihii la dhashay nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam. ilaa ugu dambeyntii farcooda uu soo gaaray nebi muuse calayhi salaatu wasalaam iyo fircoon. ambiyada badankooda waxay ka soo jeedaan yuhuudda, balse yuhuuddu waxay ahaayeen dad madax adag oo kutubada bedela. شديد المحال فربي عزيز شديد المحال سنأتي إليك نشد الرحال ويعلو الأذان أذان بلاد. سنأتي ببأس لأهل الخلال ونشفي الصدور بوأد الضلال ونشفي الصدور بوأد الضلال. سأروي لطفلي حديث السماء حكايا البراق ووقع النضال. هنا القدس آثار مسرى الهدى وذكر النبيين خير الرجال وذكر النبيين خير الرجال. سنرجع عد المضى سجودا لرب الجلال ومهما استبد العدو وطال فربي عزيز شديد المحال فربي عزيز شديد المحال. مناط السلام ومهوى المنى وقبلة روحي وتاج الجمال. هنا الذكريات هنا الأنبياء وهدي النبي وصحب وآل. هناك النفوس تسامت علاها وترقى وتسعى لوصف الكمال وترقى وتسعى لوصف الكمال.